Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Geeridu waa xaq qof kasta oo adduunka ku noolna waa uu ka tegayaa adduunkan. Saasoo ay tahay saacadaada ka hor ma dhimanaysid. Kuwani waa dad aysan wakhtigooda ay adduunka joogeen uusan dhammaan, laakiin ka badbaaday shilal aad u daran oo nasiibkoodu noqday inay sii noolaadaan. Dante Atullo waa nin Maraykan ah isagoo maalin maalmaha ka mid a samaynayay alwaax oo isku dhejinayay. Isagoo isticmaalayay qori mismaar oo misaamiirta uu ku garaacayay alwaaxyadaas. Markaas ayaa mismaar soo fakaday dhegta meel u dhow kaga dhacay. Xanuun yar ayuu dareemay waxa uu u maleeyay in wax yar ay taabteen. Shaqadiisii ayuu sii watay isagoon wax dambe dareemin. Subaxii dambe, markii uu soo kacay ayaa waxa uu dareemay madax xanuun saa'id ah. Markii uu cisbitaalka tegay, ay dhakhaatiirtu waxa ay saareen raajo. Markaas ayaa waxay ku arkeen arrin yaab leh oo ah in maskaxda uu kaga jiro mismaar dheer. Dhakhaatiirta ayaa waxay u sheegeen ninkan nasiib badnadiisa in mismaarkaasi wax yar haddii uu midig u leexan lahaa uu ku dhici lahaa maskaxda qaybteeda maamusha dhaqdhaqaaqa, taasoo ka dhigi lahayd qof curyaan ah oo aan gacmihiisa iyo lugihiisa dhaqaajin karin. Dhakhaatiirta ayaa markaas qaliin ku sameeyay si ay uga saaraan mismaarkaas maskaxdiisa. Andrew Lin waa nin kale oo Maraykan ah oo ka badbaaday 2 shil oo dhowr sano gudaheed ku dhacay, kuwaasoo naftiisa khatar geliyay. Shilkiisii hore ayaa lafaha qoortiisa ay wax ku noqdeen, laakiin shilkiisii labaad ayaa ahaa shil naftiisa galaafan lahaa. Gaarigii watay ayaa intuu waddada ka leexday galay shil keenay in bir dheer ay soo dhex gasho gaariga ninkaas afkana ka gasho, gadaalna uga baxdo, kuna dhejiso kursigii uu ku fadhiyay. Ambalaastii markay u timi ayaa waxa ay sameeyeen inay gooyaan birtii dheereed ee afka uga jirtay, markaasna cisbitaalka loo qaaday. Qaliino badan iyo ilko cusub oo loo geliyay kadib ayuu ninkaasi waxa uu ku soo noqday noloshiisii caadiga ahayd. Carlos Rodriguez, ninkan ayaa waxa uu galay shil gaari oo keenay inuu gaariga intuu ka dhex baxo madax dhulka ugu dhaco. Markii cisbitaalka la geeyay ayaa waxay dhakhaatiirtii gooyeen qayb badan oo madaxiisa ka mid ah oo cadaadis xooggan ku haysay maskaxdiisa. Ninkan ayaa waxa uu caan ku noqday caalamka markii la soo sawiray qayb badan oo madaxiisa ka maqan. Dhowrkii sanaba mar ayaa ninkan xabsiga la dhigaa. Sanadii 2016 ayaa waxaa loo xiray in gurigii uu deganaa uu dab ku shiday, iyadoo booliisku u direen cisbitaal soo qiimeeya garaadkiisa maadaama loo maleeyay in ninkan maskaxdiisu aysan taam ahayn. Ben Sholin waa nin Chinese ah oo dhererkiisu yahay 78 sentimitir oo keliya, oo xataa 1 mitir waa ka yaryahay. Sababtu ma aha inuu nin gaaban ahaa ee waxa uu galay shil gaari kadib markii uu jiray gaari xamuul ah oo 2 u kala jaray, qaybtiisii hoose ee jirkiisa ayaa ka go'day. Laakiin shilkaasi kuma uusan dhiman. Dhakhaatiirtii ayaa ku dadaalay inay noloshiisa badbaadiyaan. Isagoo 2 sano ku jiray cisbitaal ku yaala magaalada Shenzhen ee koonfurta China ku taal, oo qaliino aad u fara badan lagu sameeyay. Ninkaas ayaa muddadaas kadib ka soo baxay cisbitaalka. Waxa uu samaystay supermarket uu ugu magac daray Half Man Half Price, oo ah ninkii haafka ahaa iyo qiimihii haafka ahaa. Ilaahay baan ka baryaynaa inuu na siiyo caafimaad, cimri dheer iyo cibaado suuban. Intaas ayaan ku soo gabagabayn warbixintan. Intii aan mar dambe kulmayno, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.